Ciidamadan cusub ayaa dhawaan tababar waxa ugu soo dhamaaday deegaanada ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya kuwaas oo soo bandhigay dhoolatus cajiib ah kadib markii tababar muddo soconayay uu soo idlaaday. Ciidamadan magacooda waxaa lagu sheegay Somali State waxaana ay ka mid yihiin ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Waana bandhigii ugu ballaarnaa ee ebed la arko wixii ka dambeeyay markii uu sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya jabhadda ONLF oo heshiis la gashay dowladda dalka Itoobiya. Ciidamadan ayaa iyagu waxay si cad u sheegeen in guud ahaanba qayb ay ka noqon doonaan halganka dowladda Itoobiya looga soo horjeedo. Waana arrin kale oo culays sidoo kale dhabarjab ku noqon karta dowladda dalka Itoobiya marka la eego. Bilihii u dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida waxaa tababar soo dhameysanayay ciidamo aad u fara badan kuwaas oo qayb ka noqonaya ciidamada dowlad deegaanka iyadoo sida gaarka u yeelanayso. Labadii sano ee u dambeeyay ciidamo aad u fara badan ayay dowlad deegaanku soo saartay kuwaas oo si wanaagsan loo tababaray isla markaana helay qalab aad u sareeya. Waxaana suuragal noqon karta ayaa la leeyahay sida wararka lagu helayo in ciidamadan iyo sidoo kale dowlad deegaanka haddii xaaladdu ay sii adkaato iyagu ay iska difaacaan ciidamada Itoobiya oo halkaasi ku sugan. Dhinaca kale afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge ayaa waxa uu sheegay in dhawaan ay qorsheynayaan in dowladda dalka Itoobiya guud ahaanba ay afgambiyaan haddii aanay joojin waxyaabaha ay wadaan. Afhayeenka oo toddobaadyadii u dambeysay warbaahinta si xowli ah ula hadlayay ayaa waxa uu sheegay in heshiisyo badan oo horey ay u galeen dowladda dalka Itoobiya jabhaddii ONLF in guud ahaanba looga baxay taas oo u muuqanaysa in xaaladda jabhadaha ku kacsan Abiy Ahmed ay sii xoogaysanayaan marka la eego. Jabhadda ONLF ayaa iyadu waxa ay tilmaantay in marna qayb aysan ka noqon doonin shirarka lagu wado in Addis Ababa ay ka furmaan iyadoo Addis Ababa laftirkeeda hadda ay wajahayso xaalad cakiran iyo sidoo kale jabhadda Fano oo iyadu qarka u saaran in gudaha Addis Ababa ay gasho. Abiy Ahmed xilligan waxa uu wajahayaa cadaadis badan oo dhinaca jabhadaha gudaha ah iyadoo ciidamada dowlad deegaanka ee Soomaalida tababarka u soo idlaadayna Abiy Ahmed la sheegay in walaac xoogan uu ka sii muujiyay maadaama ciidamada ay la magac baxeen Somali State waana sababta keentay in wali iyagoo degan ama ku hoos nool Itoobiya isla markaana dhulkooda la haysto aysan marnaba ka tagin magaca Soomaalinimada. Waana arrin dad badan ay ku farxeen marka la eego in iyagoo gumaysi lagu haysto haddana magacooda Soomaalinimo aysan ka tagin. Balse jabhaddan ayaa iyadu waxay u muuqanaysaa in Abiy Ahmed xaaladda ay ku sii adkeynayso. Abiy Ahmed xilligan waxaa ku kacsan jabhado aad u fara badan kuwaas oo u muuqanaya in mid walba uu doonayo in xukunka uu ka tuuro Abiy si isaga uu fariisto. Jabhadda Fano ayaa ah tan hadda ugu cadcad ee doonaysa in Abiy Ahmed xilka ay kala wareegto waxaana guud ahaanba dalka Itoobiya ka soconaya dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan iyo sidoo kale kacdoono looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waana sababta keentay in dowlad deegaanka iyaduna ay samaysato ciidamo aad u fara badan kuwaas oo xaaladdu hadday adkaato iyagu mar walba diyaar u ah inay difaacaan. Afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge waxa uu tilmaamay in mar walba iyagu diyaar u yihiin haddii Abiy Ahmed uusan waxba ka bedelin qorshaha hadda uu damacsan yahay oo ah in talada isaga kaliya gacanta u gasho. Haddii uu bedeli waayna waxa uu sheegay in Itoobiya ay dhici doonto in la afgambiyo oo jabhada ay la wareegaan. Haddii taasi ay dhacdana xaaladda dalka Itoobiya waxay noqonaysaa mid quus gasha iyo in guud ahaanba nabadda yareed ee Addis Ababa ka jirtay guud ahaanba lagu kala baxo. Gobolada Itoobiya inta badan hadda waxaa ka soconaya dagaallo u dhexeeya qabaa'ilada iyo sidoo kale kuwa looga soo horjeedo Abiy Ahmed xukunkiisa waana sababta keentay in jabhadda Fano ay marba marka ka dambeysa ku sii siqdo ama qarka ay u istaagto in ay qabsato magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.